madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro ayaa qaaday tallaabo uu ku siinayo muhiimad gaar ah ciidamada Somaliland. waxaan maanta ku dhawaaqayaa inaanu samaynayno xafiiska xaqsiinta ciidamada haddii ay tahay kobcinta iyo dhismaha ciidamada ayaa ah rukunka koowaad ee dawladnimada. madaxweynaha haatan talada haya ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaana waxa uu sameeyay ballanqaadyadii ugu badnaa intii aanu xilka qabanin oo ku aadan dhinaca ciidamada. muddo sanad iyo dheeraad oo talada hayo ayaana waxa uu fuliyay qaybihii ugu waaweyn. maantana waxa uu qaaday tallaabadii ugu weyneyd oo uu ku xaqiijinayo hadafka awoodeed iyo halganka dawladnimo ee ay ku soo jirtay Somaliland 35 sanadood ee ugu dambeeyay. madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaana waxa uu xeer madaxweyne ku aasaasay hay'adda hawlgabka iyo xaquuqsiinta ciidamada kala duwan ee ay Somaliland leedahay. haddaba tallaabada tani micno intee leeg ayay u sameynaysaa ciidamada kala duwan iyo dawladnimada Somaliland ee tirsanaysa muddada 35 sanadood ah. laba faa'iido oo waaweyn ayaa ku jira hay'adda uu aasaasay maanta madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro. maxayse qabanaysaa inta aynaan faa'iidooyinkeeda u gelin? war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Somaliland ayaa lagu aasaasay hay'adda hawlgabka iyo xaqsiinta ciidanka, taasi oo madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ka mid ahayd ballanqaadyadii ugu waaweynaa ee uu sameeyay ciidamada intii aanu xilka qabanin, iyadoo ballanqaadyo kale oo badanna uu fuliyay muddadii sanadka ahayd ee uu talada hayay. hay'adani ayaa waxa ay ka shaqaynaysaa sida uu ku sheegay madaxweynuhu xeerka uu ku aasaasay xaqsiinta ciidanka iyo hawlgabka, taasi oo ay Somaliland markii ugu horeysay yeelanayso muhiimad weyn oo moraal dhisana u noqonaysa ciidamada kala duwan ee Somaliland. labada qodob ee faa'iidada weyn ku jirtaana waa xaqsiinta iyo hawlgabka oo ah laba qodob oo isku lifaaqan ayna hay'addu ka aasaasan tahay. qodobka koowaad ee ah xaqsiinta ayaa waxa ay suurto gelinaysaa in qof kasta oo ka tirsan ciidamada Somaliland uu helo xaqiisa, taasi oo ay hoos iman karayso dhaawacyada iyo dhibaatooyinka u soo gaara iyagoo difaacaya qaranka. inkasta oo mar walba askariga Somalilandarka ah uu heli jiray xuquuqdiisa, balse haatan hay'ad si gaar ah ugu shaqaynaysa oo isha ku haynaysa xuquuqdiisa iyo halka uu xaq ka leeyahay ayaa madaxweynuhu uu sameeyay. qodobka labaad ayaa ah hawlgabka oo ciidanka Somaliland waxa ku jira saraakiil iyo dablayaal waqti fara badan u soo shaqaynayay, kuwaasi oo ilaa iyo haatan shaqadii ku sii jira, balse iyaguna waxa ay helayaan haatan xuquuqdoodii hawlgabnimo maadaama uu madaxweynuhu hay'ad u aasaasay. hay'adani waxa ay helaysaa miisaaniyad gaar ah oo ay dawladda dhexe u qoondayn doonto, taasi oo ay ku socodsiinayso hawlaheeda sida lagu sheegay xeerka uu madaxweynuhu ku aasaasay. waana tallaabo kale oo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro uu ku fulinayo mid ka mid ah ballanqaadyadii ugu waaweynaa ee dhinaca ciidanka